Soomaaliya ayaa hadda ugu number sareysa inta uu maalintii asiibo haddii la barbar dhigo dawladaha dariska ah ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Soomaaliya ugu badan inta uu maalintii asiibay. Dhimashada waxaanu aaminsanahay inta meelaha cusbitaalada dawladdu ay gacanta ku hayso ku dhimata inaan ahayn inay cudurka ugu dhimato xaafadaha. marka way laga taxadiraa adduunka oo ka buskaday xanuunka hadduu Soomaaliya ku haro adduunka oo isu furmay hadduu Soomaaliya ku haro waxayna ku noqonaysaa burbur labaad dalkeen iyo dhaawac labaad. marka waxaan aniga oo ku hadlaya magaca dawladda Soomaaliya oo idinka mas'uula habeen maalin u taagan badqabkiina anoo ku hadlaya waxaan ka codsanayaa qof kasta oo Soomaali inuu u hoggaansamo talooyinka dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka oo qayb ka noqdo sidii xanuunkan dalkeena looga tirtiri lahaa. marka qaarkood annagu analysis ka aan sameynay waxaad moodaa dadku inay waxoogaa coronavirus phobia ka qaadeen sidii AIDS-kii oo kale. coronavirus AIDS oo kale ma kulama noolaanayo waa waqti kooban oo toddobaad ama laba toddobaad aad naftaada badbaadi kartaa, qoyskaaga badbaadi kartaa, bulshadana badbaadi kartaa. sidaa uu sheegay qof walba wuxuu dhahayaa malaria ay haysa, malaria u dhintay, cagaarshow buu u dhintay, waxba kama jiraan. dawladda Soomaaliya qof kasta oo dhinta maanta waxay aqoonsatay coronavirus inuu dilo maadaama majority ah. ogaada qof kasta oo dhintay waxaan u aqoonsanahay coronavirus inuu dilo markii uu naga baxo halkii caadiga ahayd lagu noqdo ama uu sahlay inuu dhinto coronavirus. marka waxba beeyaa la isu sheegin qannada oo dhami waa coronavirus. waxba malaria maybe way la jiri kartaa malaria. dadka waxaan leenahay qofka qadhaysan ha laga dheeraado, cusbitaalada ha la geeyo, sababtu u qadhaysan yahay ha la baaro. adigoo aan maskis ku xidhnayn ha ku dhawaanin. hadduu dhinto dhaqidiisa iyo duugistiisu process dawladeed waaye, adigu ha maydhin, adigu ha duugin. dawladda u diyaarisay ciidamo iyo ambalaasyo iyo dad oo protector ah oo xafidan loo diyaariyay. ha la soo report gareeyo khuraafaadka xaafadaha la isugu sheegayo, ha la iska daayo. xanuunka dadka laynaya most probably waa coronavirus.